السلام عليكم سؤال هذا سعبته رمضان كريم وعشركي تدوباد إنه كهل دونه برنامج بريمير برو عشرة أساس فرا أو بحث channelka waxaana idin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta casharkan waxa uu ku saabsan yahay qaabkaad u habeyn lahayd codkaaga barnaamijka Premiere Pro dhexdiisa haddaynu guda galno casharkeena marka ugu horeysa aad soo import gareysaa codka aad rabto inaad hagaajiso waxaad ka soo qaadanaysaa intaad rabto inaad qurxiso kadibna waxaad keenaysaa timeline-ka waxaan rabnaa codkeena inaan aragno qaabka wax isaga bedelaan marka waynu koobi karaynaa soo uu ku noqdo laba cod aynu aragno isbedelka ku yimi inta uu leeyahay haddaynu daarno codka marka hore soo yahay waa sidatan assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan ramadaan kariim waa intariyaan ku soo galinay marka waxaan rabnaa codkan inuu ka shaqeyno habeeno marka ugu horeysa halkan waxaad aragtaan markaynu daarno codka assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan levelka uu gaarsiisan yahay adu meelaha waa -7 marka waxaan rabnaa inaynu normalize ka dhigno sidoo codku isugu dheelitirmo marka ugu horeysa waxaan dhahayaa right click kadibna audio gain ayaan leeyahay kadibna normalize ayaan tegayaa kadibna waxaan gelinayaa -3 dB kadibna waxaan leeyahay okay haddaynu halka eegno waxaad arkaysaa assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta meesha ugu sareysa uu gaarayo waa -3 marka saas ayaynu ku daynaynaa waxaanu ku soo daraynaa effectiyo si aynu wax uga bedelno codkeena marka saynu ugu soo darno effects waxaanu tegaynaa panelka loo yaqaano effects hadaa weydo waxaad tegi doontaa window kadibna waxaad dooran doontaa effects soo kugu soo baxo marka effects markuu tago waxaanu tegi doonaa audio effect qaybta audio ayaynu tegaynaa marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaynu codka shucaaca ku jira aynu ka saarno tusaale ahaan meesha assalaamu calaykum soo dhawaada waxaan rabnaa inaynu ka baabi'ino ama aynu ka tirno marwaxadda computerka oo kale oo baxaysa noise reduction and restoration kadibna denoise ayaan dooran doonaa waan soo jeedinaa kadibna codkeena ayaan ku tuurinaa sayno effectiga uga shaqaysiino waxaan tegaynaa effect controls kadibna waad aragtaan denoise xagga ay ku soo biiray kadibna waxaan dooranaynaa individual parameter kadibna amountiga ayaan kordhinaynaa 60% oo kale ama 70% hadaynu hadda eegno assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan ramadaan kariim xoogaa codkii gadaal ka soo raacayay oo shuuqday iyo waxyaalihii dheeraadka ku ahaa way ka baxeen marka saasaynu ku daynaynaa kadibna waxaanu ku soo daraynaa effect kale waxaan tegi doonaa filter and EQ kadibna waxaan dooranaynaa parametric equalizer si aynu wax uga bedelno waxaan tegi doonaa effects control kadibna waxaan leenahay edit ayaan leenahay markaan edit dhahno waxaan tegi doonaa meesha ay preset ku qoran tahay meesha default-ga ayaan waxaan u bedelnaa loudness mix samaysa kadibna markaan u bedelno waxaan taaban doonaa meesha ay ku qoran tahay 3 waxaan ku soo daraynaa point-ga haddaynu daarno waxaad arki doontaa in xoogaa wax yar iska bedeleen maalaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogto xoogaa ayaynu hoos soo dhigaynaa kana kor ayaynu yar keenaynaa kana wax yar ayaynu kor keenaynaa fi yar ayaynu samaynaa assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan qurux ayuu hadda sii noqonayaa kadibna intaasaynu ku daynaynaa ka markaynu saas samayno waxaynu ku noqonaynaa effectska ayaynu ku noqonaynaa kadib waxaynu ku soo daraynaa dynamics processing effectiga loo yaqaan soo jiidaynaa kadibna waan ku soo darnaa kadibna waxaan aadaynaa effects and controls waxaynu aadaynaa dynamic processor kadibna edit ayaan leenahay marka hore sidaa waxaynu soo qaadaynaa kan ugu horeeya pointiga ugu horeeya pointiga kan waan jiidaynaa kadib hadda play haddaynu dhahno waxaan iska bedel assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan ramadaan kariim marka saa markaynu dhahno kan waan ka noqonaynaa markaan saa dhahno hal effect ayaa noo haray effectigaas aynu kusoo darayno waxaa weeye hard limiter waan soo jeedaynaa waan ku daraynaa kadibna effect and control aan tegaynaa hard limiterkii uu noo dooran yahay kadib presetka meesha default-ga ayaan waxaan ka dhigaynaa 1 ama 3 hadba codkaagu intuu leeyahay la qiyaasanaya 1 ayaan u daynaynaa hadda hadduu dheeraadana waan ka bedelaynaa assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan ramadaan kariim 1 ayaan u daynaynaa kadibna waan kansalaynaa waxaanu eegaynaa inta u dhaxaysa ama
waxyaalaha u dhaxeeya labada cod. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta meel kasta oo dunida ka joogtaan. Ramadaan Kariim. Haddaynu eegno shucaac badan baa ku jira iyo qaylo dibadda ka baxaysa. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta meel kasta oo dunida ka joogtaan. Ramadaan Kariim. Aragtaan aad bay u kala duwan yihiin. Markaad saas samayso waxaad samayn kartaa preset ahaan ayaad u save garaysan kartaa inta tanaad samaysay. Si maanta kadib aadan u samayn intii aad soo martay oo presetka aad u soo jiido kadibna codka ku diyaarsan aad ugu tuurto. Waxaanu samayn doonaa waxaan tegi doonaa kan aynu dooranayna wax ka bedelnay kadibna waxaan tegi doonaa effect controls ayaan tegi doonaa kadibna waxaan dooran doonaa intii effect aynu ku soo darnay. Control ayaa qabanaysaa kadibna xabad ayaa dooranaysaa. Markaad wada highlight karayso ayaa waxaad leedahay right click kadibna save as preset ayaa leedahay. Marka magacaad ku save garaysanaysaa cod wanaajiye oo kale ayaa leedahay. Markaad saa dhahdo description ayaad ku qoran kartaa waa cod wanaajiye oo kale. Markaad saa samayso okay ayaa leedahay presetkii uu ku save garaysan yahay. Marka sidee baad ugu soo tuuraysaa? Waxaad samaynaysaa waxaad tegi doontaa effects ayaa tegi doontaa. Marka effects tagto waxaad tegaysaa preset. Markaad tagto cod wanaajiye waad aragtaa. Cod wanaajiye oo soo jiidaysaa kii ayaad ku tuuraysaa aan hagaagsanayn. Markaan dhageysano assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta meel kasta oo dunida ka joogtaan. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum. Labada cod waa isku mid. Codka soo qaadaysaa halkan ayaa dhigaysaa kadibna toos ayaad ugu dhex tuuraysaa. Tusaale ahaan clips badan ayaa samaysay. Waxaad rabtaa inaad hal mar ku tuurto. Waad dooranaysaa clipska ayaad dooranaysaa. Clipska markaad dooranayso shift ayaad leedahay la qabanaysaa. Markaad wada doorato ayaad cod wanaajiye ku soo tuuraysaa hal mar kadibna saasay labadooda u wada qaadanayaan. Marka waxaan rajeynayaa inaad aad u fahantay oo maanta laga bilaabo codkaaga aad si qurux badan aad u habeyn doonto. wixii su'aalo waxaad igu soo gudbinaysaa insha Allah qaybta commentiga. waxaan u balana muuqaalka xiga iyo maalin kale.